waxaana wanaagsan dhegeystayaal iyo daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo waxbarashada aynu maanta booqanay qeybo kamid ah amaba iskuulo kamid ah iskuulada ku yaala magaalada tani ee Gaarisa oo dib loo furay waxaana hareerahayga fadhiya sida aad u jeedaanba Ustaad Cabdiraxmaan iyo waliba Ustaad Cabdi Wuduud iyo Cabdi Shakuur oo maanta su'aalo aynu ku weydiin doonaa halkan sidoo kale waxaynu mikrofoonka la dhex qaadi doonaa qaar kamid ah ardayda soo dhawaada. Safiya waa mahadsan tahay waana ku dhowhay magacayga waa Cabdiraxmaan Bishaar Aagane maamulaha iyo principalka maybe iskuulka Sunshine High School aad baad u mahadsan tahay waana dhowdihiin. magacaygu waa Cabdiwaduud Axmed Deeqow macallin iskuulkan Sunshine High School maadada xisaabaadkan bara marka bulsho wanaagsan soo dhaw Kor Cusmaan Ibrahim and Deputy Principal Sunshine. mahadsantihiin dhammaantiinba waa qaybo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga gobolka waqooyi bari ee magaalada tani ee Gaarisa haatana su-aasha ugu horeysa iyo Ustaad Cabdiraxmaan bal ka waran saameynta COVID-19 ee dhanka iyo waxbarashada. Alxamdulillah wa bacd COVID-19 waxaan u malaynayaa saameyn weyn oo runtii la taawani karo ayuu xagga waxbarashada ku yeeshay saameyntaas oo ay ka mid yihiin xagga dhaqaalaha haddii la yiraahdo xagga tacliinta ama waxbarashada ilmaha haddii la yiraahdo iyo maxaa la dhihi jiray xagga maamul ahaanba marka saameynta uu COVID-19 ku yeeshay tacliinta ama waxbarashada runtii waa mid aad u weyn dhalintii ayaa runtii muddo fara badan cidda joogay waxbarasho la'aan laakiin alxamdulillaah saameyntii hadda waa laga soo kabaday ilmihii way soo noqdeen macallimiintii ma aragtay waa kuwa waxbarashadii bilaabay marka saameyntaasina insha allahu tacaala waxaan u malayn waa laga soo kaban doonaa xagga maamul ahaan haddii la yiraahdo iskuuladii runtii way ku dhaqaale xumo iyo waxyaabo fara badan baa kusoo wajahay marka saameyn buu nagu yeeshay maxaa yeelay way adag tahay macallimiintii in mishaarkoodii iyo waxyaabahoodii kale loo raadiyo maxaa yeelay iskuuladii waxaa la furay form 4 kali ah marka form 4 haddee marmarka qaar waxaan u malayn hal kalaas way adag tahay say kusoo saaraan dhaqaalihii iskuulka uu u baahnaa xagga raashinkii ilmaha transportationkoodii iyo waxyaabo fara badan marka saameyn fara badan ayuu COVID-19 ku yeeshay oo insha allahu tacaala aan rajeynayno waqtigan wixii kasii dambeeyo in insha allahu tacaala naga hari doonaan marka saameyntu way badan tahay Safiya aad baan Ustaad Cabdi Wuduud iyo su'aasha xigta sidee ardayda ula qabsadeen awaamirta COVID-19 su-aasha waa ku mahadsan tahay ardayda si fiican bay ula qabsadeen iskuulada markii la furay dowladda waxay ka bilowday classka form 4 oo high school primarygana class 8 iyo grade 4 anuka maadaama high school uu yahay waxaan haysanaa ilmaha form 4 ilmahayna waxaa waaye qariiban 50 iyo 53 meelahaas marka calaa class horta ilmaha waa la kala fogeeyey social distance baa jira 1.5 meter classki meelaha 20 ilaa 23 anigu waa ku jiraan marka kalaasyadana aad bay u weyn yihiin adiga taa waa arki doontaa si aad bay u kala fogyihiin ilmaha marka social distancing practicing baa jira waxyaalo kale oo wasaaradda health ay keentana way jiraan oo mask inay la xirto saa arkayso taa macallimiinta way wataan albaabka iskuulka lagama soo galo qof oo mask la-aan ah ardayda kudda iyukana way wataan macallimiinta sidoo kale shaqaalihii kale iskuulka mask way qabaan marka lamana siibo ilaa waqtiga iskuulka la joogo from salaadii 12 ilaa 11 casharada waan joognaa intaas ardayda mask way qabaan midda kale waxaa jirta washing facilities hand washing places ilinka umare waa kusoo marteen sanitizer iyo way yaalaan marka ilinka laga soo galo gacmaha iyo waa la dhaqdaa dhinaca kale iskuulka iyadana way taallaa dhinaca jikooniga way taallaa dhinaca masaajidka way taallaa marka meelo idil oo stations badan ay taallaa oo gacmaha iyo in lagu dhaqdo marka ardaydana way suqman bay la qabsadeen COVID-19 health protocolski said bay u raacayeen gacmihii way dhaqanayeen maski way xirnayeen social distance way practice gareen marka si fiican bay la qabsadeen ma insha Allah ay haatan caqabad haysata ama ardayda ma jirta caqabado haysto oo ay la kulmayaan maadaama xaalad adag lagu jiro sida badan board systemki Kenya waa 844 8 sano primary 4 sano lower secondary oo high school kan iyo 4 sano oo jaamacad ardaydan hadda markaa fiiriso waa form 4 sanadka ugu dambeeyay ku jiraan waqti ahaan hadduu corona jiri lahayn waxaa la rabay bishii 11aad aan joognaa bishii 11aad waa xilliga imtixaanaadka isku diyaarinayeen oo imtixaan uu bilaabayeen laakiin hadda ardayda waqti baa ka dhumay 7 bilood may akhrisanin hadda second term baa la bilaabay
markaas imtixaankoodii dib buu u dhacay sanadka kale bisha saddexaad uu ku hagaagsan yahay markaas ardaydii marka psychologically comfortable ma aha because waxay arkayeen waqtigii imtixaanka la geli jiray inuu yahay mideeda kale arday waxaa jirta oo problems ka qaban like asthma maaska dhib buu ku yahay waqti dheer hadday qabaan maaska waa wuu rafaadinaa markaas waa shidhayahaasiita iska jiraan wax sii fara badana jiraan arday iyukana lagu karaynin gacmaha dhaqdana way iska jiraan maadaama ardaydoo dhan isku mid ma aha kuwa waxaa arkay hadda gacmaha dhaqaaleeda hadhow haddana waa laguma karayo because dadka wax may baranin soomaalidayna sidayna wax osuqmanaan u baranin dhib bay nugu tahay markaas arday dhibkaasayto unbaa un kasii jiraa wax qumanna oo saa usii weyn ma jiro laakiin midaas oo imtixaankooda santahay ustaad cabdishakuur sideed ku maareyseen dhaqaalaha iskuulka wallaahi macalin cabdiraxmaan iyo macalin cabdilwaduud horena ay uga soo hadleen dhaqaalaha iskuulka hadda badan horta coronaga cudurkan horta saameyn badan ayuu ku lahaaday maaragta iskuullada badanaa oo private ah dhaqaalooyinka hoos ayuu dhacay waxaad arkaysaa ilmo fara badan qaarna way ka cararaan iskuullaha weli may soo laabanin waayo taasna waxaa yeelaysaa waalidiinta badanaa waxay ka cabsoonayaan cudurkan waxaan leeyahay haddii la iska ilaaliyo maaragtay wax saa usii jira maahan waa un ilaalitaan un in la iska ilaaliyo waay aadan maxamed ka waran sidee u aragtaa in dib loo furo iskuullada maasha allah aadan ugu faraxsanahay inaan akhriskayni dib aan ugu laabano annagoo doonayna waayo sana dugsiyeedka afraadaan ku jirna mana doonayna waqtigan macnaha uu naga lumay in badan waqtigii hadda waxaa la jooga oo kale la samayn jiray KCSE laakiin waxaad dareemi kartaa waqti maduu kaa lumo inay dib dambe aada u helaynin waqtigii waa naga lumay laakiin hadda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dugsiyo dib ugu soo laabano sana dugsiyeedkayna inta nooga dhimana aan sii dhammaysano annagoo aad ugu faraxsan dhanka kalena waalidka ay dhibaato ay ku tahay waayo waxaad dareemi kartaa dugsiga anaga markaan dib ugu laabano waan ku faraxsanahay inaan akhriskiina aan sii wadan laakiin waalidka dhankooda ay sheeganayaan in badan ay ka calaaltaan dugsiyaasha qaar oo kale waxaa weeyaan waa private shaqsigaas kale waxay dareemi karaan dugsiyaasha oo kale ma shaqayni karaan ilaa saboodka ay waayaan ay ka helaan dhanka waalidka waalidka intooda badan waxay ka calaalaan macnaha fiiska iskuulka ee arrimahaas laakiin annaga totally waan ku faraxsanahay magacaaga samsam nasiib samsam ka waran sidee u aragtaa in iskuullada dib loo furo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in iskuulka dib noogula furo ma u diyaar garooday imtixaanaadka qaran ee dowladda haa aad iyo aad baan isugu diyaarinay ka waran saameynta covid-19 maadaama arrin cusub ay tahay in awaamirta aad yacni samaysaan wax caqabad ma kala kulantay inaad maaskaradii gacmo dhaqii maalin walba taagin runtii haa waxyaalo fara badan baan kala kulanay waxyaalo fara badan oona horaan aqaanu lahayno like maaska oo la xiranayo gacmaha la dhaqanayo runtii aad